wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay uudinaha iyo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijkeena habeenimada waxaa ka mid ah madaxweyne Farmaajo oo wali Rooble aan u aqoonsanayn ra'iisul wasaare kadib markii lagu helay cadeymo ah inuu boobay hanti qaran ergooyinkii dhexdhexaadinayay Rooble iyo madaxweyne Farmaajo oo qarka u saaran inay ka dhex baxaan kadib go'aankii madaxweyne Farmaajo iyo Rooble oo doonayo inuu dalka isaga baxo hadduu qaban waayo shirka uu ilaamiyay ee doorashooyinka halkee ayay marayaan dadaalada xalinta xiisadda isbeddelka ee BSF xilli dani uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho isagoo doonaya inuu ka qayb galo shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka uu ilaamiyay ra'iisul wasaare Rooble galmudug oo ganaax culus duldhigtay 6 ka mid ah xildhibaanada maamulkaas iyo Abiy Ahmed oo bedelay istiraatiijiyadda dagaalka iyo mowqifkii oo kala ahaa TPLF iyo waxyaabaha ka soo kordhay in barnaamijkeena habeenimo ku qaada dhigi doona fadlan daawadi haddii ay tahay markii koobaad aad soo booqato janaalkeena subscribe dheh oo furo gambalelka si aad u noqoto daawadaha koobaad ee wararka aan sida maalinlaha u soo gelino mahadsanid halkee ayuu marayaa dadaalka loogu jiro xalinta xiisadda isbeddelka BSF xilli dani uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho si uu qayb uga noqdo shirka golaha qaranka iyo ilaamiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxaa kulanku dhex maray hoyga uu ka degan yahay magaalada Boosaaso Asadiyaano madaxweynayaashii hore ee Puntland Faroole Gaas iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke kulanka ayaa sida xogtu cadeynayso waxa diiradda lagu saaray sidii xal waara looga gaari lahaa khilaafka ka dhashay isbeddelkii lagu sameeyay hoggaanka hay'adda BSF ee la wareediyo aad loogu kalsoonaan karo waxa ay sheegayaan in wada hadallada lagu xalinayo khilaafka uu meel wanaagsan marayo xiisadda ka dhalatay isbeddelka dhanka hoggaanka ayaa saameyn ku yeelatay ciidanka waxaana hadda Boosaaso ka soconaya dadaallo dhinacyo badan taabanaya kuwaas oo lagu dhameynayo ismariwaaga sababay gacanka hadalka ee ka dhacay maalmihii la soo dhaafay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ciidanka BSF waxay taageero ka heli jireen dowladda Mareykanka iyaga oo loo tababaray la dagaalanka argagixisada oo wax badan ay ka qabteen sanadihii uu hoggaanka socday dowladda Mareykanka ayaa sanad ka hor joojisay taageerada ay siisay hay'adda Puntland Security Force sida uu taraadidii faafiyay barnaamijka galka baarista ee VOA galka baarista uu daadihiyo wariye Haruun Macruuf ayaa soo xigtay sargaal ka gaabiyay magaciisa sabab la xiriira inaan la ogolayn inuu ka hadlo arrimaha xasaasiga ah sida ku xusan warbixinta xukuumadda Washington ayaa u hakisay taageerada BSF kadib markii hoggaanka hay'addu diideen inay ka mid noqdaan cutubyo ka tirsan ciidanka danab ee kubaandooska dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dhinaca kalena galmudug oo ganaax culus duldhigtay 6 ka mid ah xildhibaanada maamulkaas gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal warqad uu u diray wasaaradda maaliyadda galmudug ku sheegay in xildhibaanada baarlamaanka galmudug qaarkood mushaarka laga jarto warqadan ayaa lagu sheegay in 6 xildhibaan laga joojiyay gunnada 2 bil iyo qaybgalka 4 fadhi xildhibaanadan ayaa la sheegay inay diideen inay noqdaan kuwa taageersan madaxweyne Qorqor oo waxba ka sheegin dhaliilaha maamulka galmudug xildhibaanadan ayaa waxa lagu eedeeyay inay carqalad ku noqdeen kulamada baarlamaanka waxa sidoo kale lagu eedeeyay been abuur xildhibaanadan ayaa lagu amray inay raaligelin qoraal ah iyo mid qoraax ah ay ka bixiyaan waxyaabihii lagu eedeeyay magacyada 6 xildhibaan ayaana kala ah xildhibaan Cabdullaahi Xirsi Maxamed xildhibaan Axmed Cabdirasaaq Cabdullaahi xildhibaan Cabdinaasir Aadan Cusmaan xildhibaan Cabdiqaadir Bariise xildhibaan Mursal Maxamed Yuusuf iyo xildhibaan Daahir Cabdi Shiiqo warqadda loo diray maaliyadda ayaa lagu hakiyay dhaqdhaqaaqa mushaarkooda 6 mudane muddo ku siman 2 bil sida aan horey idinku soo sheegnay sababta xildhibaanadan loo joojiyay mushaarkooda 2 bil ah iyo 4 fadhi ayaa lagu sheegay inay diideen inay noqdaan kuwa taageersan madaxweynaha galmudug Axmed Kaariye Qorqor Abiy Ahmed oo bedelay mowqifkiisa dagaalka ee ka dhanka ahaa TPLF iyo waxyaabaha ka soo kordhay ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya Demeqa Mokin ayaa sheegay go'aanka dowladda ee ku aadan in ciidamadu gelin gobolka Tigray uu yahay mid looga gol leeyahay in lagu fikiro xal aan dagaal ahayn Demeqa wuxuu sheegay dowladda Itoobiya in kaalinteeda ka soo baxday
uu xalku hadda la jiro fallaagada TPLF. go-aanka dowladda ciidamadeedu ku amartay inay deegaanka Tigray gudaha u galin oo si weyn loo soo dhaweeyay in laga faa'iideysto ayay ku xiran tahay sida ay fallaagadu u dhaqanto. wuxuuna carabka ku dhuftay go-aanada ay Washington ka qaadatay arrimaha Itoobiya inuu yahay mid lagu degdegay, Itoobiyana ay aad uga xun tahay. Itoobiya waxay qaramada midoobay ogeysiinaysaa ayuu yiri mowqifka ku aadan Itoobiya inay wax ka bedesho. dagaalka Itoobiya ka socda in ka badan sanad wuxuu ahaa ayuu yiri mid shucuubta dalka mideeyay isla markaana Addis Ababa ay ku kasbatay saaxiibo caalami ah. dagaalka Itoobiya oo salka ku haya xukun ayaa ka socday muddo sanad iyo 4 bilood ah, balse hadda wuxuu u muuqdaa in dagaalku uu yahay gabaabsi, walow aan ilaa iyo hadda cid gooni ah guusha sheegan maadaama Tigray ay ku sugan yihiin deegaankooda dowladda federaalkana ay inta kale ee dalka xukumayso. dagaalkan oo dhimasho iyo dhaawac farabadan ka dhaceen ayaa gudaha dalka waxaa soo farageliyay dowlado shisheeye sida Mareykanka, Ruushka oo ka taageersan labada dhinac, iyo China oo sidoo kale taageero xoog leh u fidinaya dowladda Itoobiya maadaama uusan China doonin in Itoobiya burburto. sida la sheegay dhaqaale farabadan ayaa uga jira dalka China. haddaba halkaa waxaa inoogu eg wararkeenii habeenimo. fadlan daawad haddii ay tahay marka koowaad aad soo booqato janaalkeena Calanka TV, subscribe dhoo furo gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyada aan sida maalinlaha u soo gelino.